mudane cabdi kaahim xareed waa madaxa xafiiska caafimaadka ee degmada Baarey ayaa noo sheegay in isbitaalkani uu yahay mid adeeg hufan siiya kana mid ah saddexda helisantar ee loo dhisay degmadani Baarey mid kamid ah oo imika shaqadiisa bilaabay waxa kale uu noo cadeeyay in uu bixiyo dhammaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada waxaana isbitaalkani maalintii lagu daaweeyaa dad gaadhaya 25 qof ilaa 30 qof adeegyada uu bixiyo waxa kamida emergency-ga waxyaabaha daawada emergency-ga xilli kasta uu bixiyo maxay ahayd labkii oo ka shaqeeya lab initialka ama shaybaarkii oo shaqeeya qaybtii dhalmadii oo ayadna furno 24 maternity oo ayadna shaqeysa marka waxyaabaha uu aan la dagaalanna ugu badanna waa cuduradan maxay ahayd soo jireenka ama cudurada emergency-ga kaleeto labaduba uu ku heelan yahay inuu heer centerku wax ka qabto waana ka qabanay sidoo kale waxa uu mas'uulku noo sheegay in xiriir wada shaqeyn ay leeyihiin isbitaalada Hargeysa iyo Goday ayna ka caawiyaan waxyaabaha awoodooda ka baxsan wuxuuna mas'uulku intaasi ku daray in xafiiska caafimaadka ee heer deegaan uu waqti xaadirkan u ballan qaaday gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaan ambulance ayna yihiin degmooyinka u horeeya ee gawaadhidani la siin doono wixii naga awood badnaa cancer tarhan naga awood badnaa referral baan sameeynaayo waxaan u dirnaa Hargeysa kaleeto ama Goday kaleeto balasta laakiin xafiiska caafimaadka ka qorshahan waxa uu qorsheysnaa ambalaasyada hore ambalaasyada imaanaya ugu horeeya in mudnaantana la siiyo ayaan door bidaynay waana ka sugeynaa xafiiska caafimaadka duleeyda muuqaalka ka muuqda heer centerka iyo shaqada shaqaalaha ay u joogaan maalin fasax kale ay shaqaaluhu ka tageen shaqadooda ay hayaan marka isbedel weyn markaan imaaday muddo ka hor 4 bilood ka horeysaan imaaday ka bacdi centerkan ma furnayn isla xilliga aan socdayba wuxuu anakii degmada aan ku hawl maxay aan ku horay ugu dhaaqnay inaan furno waana furnay guulii la rabayna waan ka soo hooyinay haddana insha Allah meel fiican ayay loo maraysaa dadaal dambana uu nagu harsan yahay waxyaabo badan oo rabna hadda aan ka qaban heer centerka baa naga dhiman xagga dhaqaatiirta wax yar caqabad naga geysatay dhaqaatiirtana xafiiska caafimaadku wuxuu noo ballan qaaday inuu dhaqaatiir si degdeg ah nagu keeni doono dadka adeega u soo doonta isbitaalkan ayaa iyaguna dareenkooda nooga warbixiyay kuwaasi oo noo sheegay intii isbitaalkani uu shaqadiisa bilaabay ay adeeg fiican ay helaan kana maarmeen adeegii dhinaca caafimaadka ay u doonan jireen degmooyinka dariska la ah degmadani Baarey waxaan soo maray waxoo kaniini yar uu noo yaalo oo wax yar oo daawo xanuun baabihiyo iyo wax noocaasa saabloon iyo wax noocaasa aan ka qaadano waan soo maray waad aragtaan hadda siduu yahay haweenka laga dhaliyaa dhiigga lagu baadhaa dadka lagu daaweeyaa wax yar oo qayb yar baa naga dhiman sida raajitada iyo wax noocaasa cudurrada faafa sida TB-yada baa naga dhiman intaana waxaan rajaynaynaa inaan ilaahay idinkii aan haddana helno waxaan helay sanadkan cusub dhaqaatiir maamul fiican leh oo si fiican noo daaweysa waxaan haysanaa daawo aad u fiican oo ku mahadinayno dadka noo keenay waxaan haysanaa caafimaad wanaagsan oo muliso wanaagsan daryeel wanaagsan baan haysanaa waxaana naloo keenay inta hadda dib curashada ay bilaabatay baa naloo keenay waan ku mahadinaynaa dawladda iyo dadka noo soo keenay waan ku mahadinaynaa waxaan doonaynaa si fiican sida iyo si ka si fiican inay dawladdu noo yeesho isbitaalkan ku yaala degmada Baarey ayaa ah mid dhawaan la dhisay iyadoo ay ku baxday lacag ka badan 12 milyan oo bir ayna ka faa'iideysan doonaan dadka degan degmadani Baarey iyo nawaaxigeeda